وقضية culays keeda leh baryahana baraha bulshada aad loo wadwaday dad badan ay ka hadleen wadaad ay ka hadleen dal iyo dabadba jooga waa qadiyadii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ina Warsame hadalkiisii waad wada dhagaysateen baan u malayn aniguna markii hore ma jeclay inaan ka hadlo in badan ba waxaan soo idhi adaa dhiman looma hadlee maxaa loo hadlaa hadal baa dhiman laakiin telefoonkii iyo hadalkii baa igu batay wadaadow islaamka maxaa kaa reebay waa adigii dagaalami jiro faagan jiray marka nabiga wax laga sheegay iyo diinkee baryahan maxaa ku daaray in la istuumay tagtay baash in la istuumo ayay tagtay waa arrin iska culus muxaadaro gooni iyo fadhi gooni ah bay u baahan tahay markaan eedu isoo gaadhay oon dib hadalkii u dhagaystayna wadaadihii ka hadlay waan yaraha saluuga aan saluuga darteed baan waxaan is idhi kelimo gooni ah ka qabayn laakiin bal cashirka muslimka gudihiisa xoogow aan ka darinoo dhiig joojin ah ka dheh qodobka koobaad waxaan rabaa inaan u mahadnaqo culimmadii muslimiinta ahayd anoon cidna magacaabaynin ee qadiyadda ka hadlay ee isku dayay in ay diinka difaacaan aflagaadadii ay jaa'ifada nabiga loo geystay ay ka dhiidhiyaan muslimiinta ay baraarujiyaan ku caraabiyaan oo ku tirtirsiyaan inay diinkooda difaacdaan arrintaasi ka mahadnaq bay mudan tahay mana rabo inaan ka hoos dhaco ninkii geeljiraha ahaa ee isagoo ceel jooga hasha u heesay wuxuu yidhi markay tuban tahay ama lala tago helay looma kala tago buuri yacni geelu markuu ceelka joogo markay tuban tahay ama lala tagee la dhaco looma kala tago markay ceelka joogto waxaa shubi ninkii shalay in loo liso loo diiday ninkii laga marti soori waayey ayaa markay geelu ceelka jooga shubhayo xaq loogu leeyahay haddii la dhaco dhicinteeda iyo ku dagaalankeeda waxaa laga rabaa ninkii gaadiid looga diiday hal maala looga diiday zake laga siin waayey asagoo socotaa dhiil caana looga lisi waayey marka wuxuu yidhi markay tuban tahay ceel joogto weeye hadda ama lala togee la dhaco wale looma kala tago weli looma kala tago waa la isugu yimaadaa bimacnaa geela in la ilaaliyo la dhaqo waa dan guud weeye dhaqaalihii baa ku dhisan soomaali baa ku taagan xogow yarkee marka inoo dhexeeya xisaabaadka ah markaasoo kale la fiirin mahayo horta geela ha la shubo war ha la dhacsho weeye hadda wadaadahaas wax badanoo noo dhexeeya in ka midoo qadiyadda ka hadashay hadda ku leexan maayo maxaa yeele waxay ka hadleen hawl aan loo kala tegaynin wale looma kala tago soo ma garataan meesha u socoto mar haddii diinkii iyo rasuulkii iyo shareecadeennii khatar la geliyey nin walboo ka hadlay oo difaac isku daya gaalba allah ka dhigee wuxuu naga mudan yahay waad mahadsan tahay inaan dhahno in allaha la yu'ayidu bihada addiin birajuli alfaajir wadaadaha ammaantooda mahadnaqooda haddaan ka tago waxaa si gaara aan u mahadnaqayaa bulshada dhallinyarada lab iyo dhadigba leh ee baraha bulshada aad uga dagaalamay ee hawshaa ka dhiidhiyey ee wacdaraha ka muujiyey ee markaan dhagaystay ama aan dabagalay qalbigay ku qaboobay aad baan ugu farxay qadiyadda ayada in muslimiintu maanta dhallinyaradoodii ay taagan yihiin ninkii nabiga wax ka sheega ama diinkeenna dura inay halkaa la gaadhaan dareenka maanta ay qabaan dhallinyaradu muslimiinta lab iyo dhadigba hadduu 75 jiri lahaa culummadeenni lama laayeen inasiyaad barre dan baarida kuma gowraceen ninka boqorka ama madaxweynuhu ah waa faajir baaqi ah wuxuu qiimeeyaa kolba bulshadu meeshay marayso
hadday bulshadu yacti dhaahdo wuu cabsadaa hadday u hogtaanna wuu dullaystaa xaqiiqo la ogyahay weeye arrintaa dhallinyarada baraha bulshada inaan u mahadnaqo waxyaabaha ay u kallifo weeye inaan caawa ka hadlo qadiyadda ayada ma jeclayn inaan qadiyaddaas aan soo celceliyo idinkoo igu daalayay kuwa la mida inaan ka hadlay laakiin dareenka ay dhallinyaradu lab iyo dhadigba baraha bulshada ka muujiyeen ee diin jacaylka ah ee danqashada ah ee islaam jacaylka iyo dhiidhiga iyo ficilada diineeda ayaa idanqay oo u kallifay inaan qadiyadda caawa ka hadlo qodobkaasi mahadnaqa dhallinyaradu waa iga mudan yihiin khayr allah ha siiyo duunkada allah ku sugo mar walbo qadiyadda noocaas ay timaadana waxaan ka doonayaa inay ka hadlaan qodobka ii raaca waxaa weeye inaa warsamo hadalkiisu inaan qiimeeyaan rabaa kadibna xugum saaro marka xigtana wadaadaha ka hadlay waxa ka khaldan aan tilmaamo marka xigtana waxa idinkaga aadan dadka noocaasoo kale aan tilmaamo qodobka koowaad waxaa weeye ee ku saabsan inaa warsame hadalkiisa togan iyo ka taban bilow iyo dhammaad marka la qiimeeyo la dhibciyo wuxuu xambaarsan yahay in la quursado nidaamka islaamiga ee siyaasadeed la bumbuuniyo la ammaano la bilo nidaamka reer galbeedka siyaasadeed hadalka nuxurkiisa guud markaad qiimaysaynu ka hadlayna bilowga hadalkiisa ilaa dhammaadkiisu wuxuu iskugu jiraa hadal toosoo togan mubaashir baa carabiga lagu yidhaahdaa iyo mid taban af soomaaliya tabni baa la carabigana hayru mubaashir baa la yidhahdaa hadalka togan ee toosan iyo ka tabanba bilow iyo dhammaad markaad isku qiimaysa qiimayn guud maxaa ka soo baxaya waad dhegaysateene anigu 3 goor baa ku ceshaday waxaa ka soo baxaya nidaamka siyaasadeed ee islaamiga inuu quursanayo xaqirayo ama uu daraabayo xaggana uu bilayo wanaajinayo nidaamka reer galbeedka ee wastareenka siyaasadeed dimuqraadiga mucaasirka ah qodobka asaga waa kufrun fi diin illahi biijmaaci lmuslimiin gaalnimo uu ku dhacay kow iga dhimidda ayada gaalnimada kale hadalkiisa uu xambaarsanaya labaad waxaa weeye inuu inkiray xadiidkii saxiixa ahaa fi saxiixayn ummadduna ay kula kulantay bilqabuuli ay kula kulantay 1200 sano ka badan من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ومن حديث ابن عمر في صحيح مسلم يا أحاديث فربنا وذكرنيسا ناقصات عقل ودين وحكوت المامي إنا ورسمي وحكوت المامي إنه يا حديث فالساء أو ميلو كيمد أي سنشرين أو شاب كلا صوبحاي عذر دارشة الدبلوماسي كده سياسي هيدا بي بسد أوسيين وحكوش شيء إنه حديث كأنه صحيح أوجيه حديث نبي محمد أكتها إنه السجيا نك الضفير حكم كيسو وكفر أصونا على الراجح من أقوالها العلم وإن كان من أخبار الأحد خبر واحد بالله كردجو نك الضفير حديث سجان لفظ جيسة أمام معانيهيسة أصوغ قرنية إنه السجيا هاي نبينا أوليه وكفر لباد أو كردعي كفر صدحات uu ku dhacay waxa weeye hadalka taban laga fahmaya ama daahir bakuwa nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo culimada muslimiintu xaqiray laana xadiidka wuxuu sheegay inuu xaqirayo dumarka in lagu afjigo oo xaqay leeyihiin lagaga celiyo dumarka lagu quursado lagu xaqirayo xaqa siyaasadeed leeyihiin loogu diidayo xadiidku sugaya sidoo asagu uu arkay marka uu aaminsan yahay xadiidka xaqiraada iyo liidnaanta iyo dulmiga dumarka xambaarsan waxa ku hadlay nabi maxamed kaleey salaatu wassalaam taa macnaheeduna waxa weeye suubanuhu asaga kow ka ah wadaadaha iyo culimada xaqira dumarka xaqoodana u diiday afjiga xaqa siyaasadeedna sanka kaga dhuftay u diida suubanuhu la xaqira kaleey salaatu wassalaam waa maxay waa kufrun biijmaaci ahli alqibla hadalka saddexaad kufriga saddexaad inaad sidaa u fahanteen baan u malaynaya
waxaan ka hadlayaa hadalkiisa tooska midka sariixa ka daahirka ka iltizaamka iyo luzuumka ku imanaya intuu waa isku qiimaynaya waxaa kaloo ku jira hadalkiisa inaad dhagaysateen baa laga yaabaa qaybaha u dambeeya wuxuu leeyahay waxa la sheegay la leeyahay musiiba dhalan iyo balaaya dhalan iyo liibaan daraa dhici haddii dumarka siyaasadda loo dhiibo ama ay taliyaan ama madax noqdaan waxba kama jiraan waa been buu leeyahay halkaana wuxuu dafirayaa oo beeninayaa suubanaha calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii abubakr nufay ibn alxaaris lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a nabigu ma guulaystaan ma liibaanaan buuri asna nabigaa yidhi asna wuxuu yidhi waa been waxba kama jiraan way guulaysanayaan wax musiibaa dhici mayso isku dhac iman mahayo hawshu waa dhagdhag nabi allow keri of baa lagu yidhi hadalkiisu waa sida si fiican dhuuxdeen baan waa kufri afraad waa kufri iyo gaalnimo afraad wey hadalkaa dib u dhagaysta midda shanaad ee ku dhacay gaalnimada shanaad ee ku dhacay hadalkiisa erayga ugu dambeeya wey wuxuu leeyahay haddii dowlad aan awood ku leeyahay ama aan ka taliya ay istimaado Soomaaliya waxaan ogolaanayaa oo qarirayaa in rag iyo dumarku ay siman yihiin maydan dhagaysanin baan u malay rag iyo dumarku waa siman yihiin waxba uma dhaxeeyo dumarku ragga kama hooseeyaan naaqus ma jiro waa laba farood oo siman buu leeyahay وهذا ومحي وتقرير المساواة بين الرجال والنساء وكفر أكبر بإجماع المسلمين وأنا تي علماء اللي يقول لا يتضباطنيو شنتي قد يدو يسقالك أما طبانك اللي قد لي كفر قاسي وكفر شنادوي كفر لحاد وكتر وحاوي هوين ايدي قاشا هايد انجلا ماركل ku duqowday gaalnimada tincaska ku noqotay ayuu amaan kala dul dhacay aadna u amaanay wa tabjiilu kaafirin kufr inda alfuqaha gaal in la weyneeyo oo la bombooniyo oo ummad qudwiyo ku dagasho looga dhigana waa gaalnimo madax banaan عند بعض الفقهاء كفقهاء الحنفية بل وحي قارسين فقهاء ولو سلم على مجوسي تبجيلا كفر ولو قال لكافر يا أستاذي تبجيلا كفر هداد قال وينيسو وكتر معلن كيجي وبرفصور كيجي وأضو وينيني أما ثلانة سلانة يكم مقنا يسوي وينين كفرت بالله العظيم عند فقهاء الحنفية أنجلا ماركل قابك ويني يسوء بومبوني يمشوا جيي إلى أن كسكتين عن شعل هذا الناقطة أيوه ودي وامحي والتبجيل كافر كفر ما هو كفر بعد هيسان لحظة قال نمو كتيرا إنا ورسمه 6 سنة حتى سيسر بين أوجموس توبت كان بامبو شيء مركو لها واربحين تبي بسدسي وحيلي وحن كودي معناها حديث كبنتي وي مركز باب الكفر هي تفسير الألفاظ مريسان هي دلالاتك روح هذو قال لي معد كهالله أما إري ظاهر كأه معنى كهالله كدبنا ومعنى كلا كأول لا يقبل عند العلماء حديث فالساء وميلو كيمد أوسنشرين أو شابك لقى الصباحي أي ضمرك اللي حقر يا هذا الكيس السريح يسوي ما يسماها وحان كود التفسير كيسين معنيه سواء بين عط وكلام دبلوماسيا بردقليسي عامة الربا إن شاف الله الله أرضه ضدك اللجوية الربا إلى أمن كان توبة صريحة وولي مدنك أسقى موتشر لحظة كفري أيا أرمر كان هذا الكسفير يبرنان كتالا نيكي سيقود قدرة أفمدوبا لميل على جموايه واللقيه ليا كفريات كله maxaa muslimiinta kaga aadan muslimiinta waxa kaga aadan ninka asaga ah wuxuu khatar galiyay diinka iyaga wuxuu meel kaga dhacay qadarintii iyo xurmadii shariicadayada wuxuu qursaday subhanahu naga calayhi salaatu wasalaam waxa waajiba naftiisa in khatar la galiyo meel walba uu joogo lagu beegsado dhalinyarada muslimiinta la hadlaya jilib culusta lama hadlayo laano jilcustu waa igabeen hadday xubinkooda iyo cadkooda goostaanna halkaaba maanta hawshu ma gaadheen
ninka gabay ee geedkiisu nagu soo dumay waa duqayda dhalinyaradan la hadlaya dhalinyaradu waxa waajib ku ah ninka asaga sidoo muqaddasaadkiina khatar u galina naftiisa khatar u galisaan wa ana atahammal mas'uliyata dhalika bayna yadi Allah subhanahu wa ta'ala midaasi waa qodob aan rabay inaan dhirto qodobka irca waxa weeye wadaadaha ka hadlay badankood hagardaama diineed bay idinku sameeyeen hagardaama diimeed bay idin geysteen waxaan ka ahayn inta anigu dhageystay baan ka hadlayaa sheekh daahir aw cabdi iyo sheekh xasan daahir aways faka allah wa asrahu waxaad arkaysaa kuwa kuwale ninka waa inuu toobad keeno ayagoon xukumayn waa idab daro iyo marin habaabin ummadeed weey ruuxu hadduu cudurdaar leeyahay ama kufri ku dhaco ama uu dembi ku dhaco cudurdaarna leeyahay ha toobadkeena macnaheedu maxay tahay waa been caamadaa lagu siraa idinkaa waxaa laydin moodsiinayaa in la hadlay oo xaqi la caddeeyey oo diinka la sharxay oo diinkii la difaacay waa been wey ninku hadduu cudurdaar leeyahay oo ama mutaawil yahay agtiina ama uu jaahil yahay dembiba kuma dhicin muxuu ka toobad keenayaa kufriba kuma dhicin muxuu ka toobad keenayaa ninka mutaawilka ama jaahilka ama cudurdaar kale wuxuu ka soo ka dhigan yahay kaanahu lam yaqa inuusan ku dhicin wax dembi ama wax kufri ah miyaad aragtay nabi maxamed oo saxaabi khaladamay oo jaahila ama mutaawila tub ila allah ileh gawaanka cidada lidinku ordaya beenta ee geedka saramarada la idin saaraya iska ilaaliya dhagar iyo khiyaano way khiyaanada labaad ee idinka galeen waxa weeye ina warsame in badan oo kamida waxaan tuunsanahay in qabyaalad ay u caydhsanayaan in ayaga kamidana waxaan tuunsanahay in siyaasad ay u fiijisanayaan haddaysan jirin dareenkaygu uusan sax ahayn maxaa kala duway cali wajiis iyo ina warsame cali wajiis oo kii darad lahaa ma aha kitaabka quraanka looma soo dejinin in ummado iyo dawlado lagu maamulo ma aha qaamuus loo soo dejiyay in ummad lagu maamulo hadalka cali wajiis iyo hadalkan ina warsame kee khatarsan inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيبا أولم يكفهم أن أنزل عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إذن قرآنك وحالو سودجيي إن أمة نبي محمد لغم ما ملدل يدل يضد يدين با نينك الشلي لها كتابك قرآن كان ماها قاموس لو سودجيي أمة لغم ما ملو شيخ يا عالم بوكوية هاي مساجد كسو دويستا كان هبر قدنا واد في جسن محان مركا كآمنة مودا دعادا تاي مسدانيستا تاي إنا ورسم حكومة كتير سنة هاي يا أمير كذا فرماجة أي وحكويهين دولة إسلام أيجا أنا كدر إنا ورسم وحق أمسي لا أمسي وين كدرين على وجيز يعيدن كيسو يفرماجة يكل يخير وامحي وهل درو اسكم مدعة ومضى محاط لك ريسان أو خائميسان هذا عبستي ما إسكا مستان اللي هو اللقوية هدي أبري ريسان حقا ما عديسان محاكينا إن لبشي اسكم مدعة بالك هلا دران كي دران لغا آموسو كي تبرت يران الله في جستو الله عيرسدو من ده هوشو وحاوي مسكين باهي مسكين لفواله ina warsamay min dhaatun jilicsadeen baa laga yaabaa ama baraha bulshadu barihan aad loogu dagaalamo custom laga raadiyo ayaa la qancinaya xogo balaqa loo tuuraya la socda amba diinka waan difaacay yaani waa khalad hawsha ayada dhalinyaradu inay ku katsobaan ma
dhalinyaradu inay ku kadsoomaan erayada khaldan ee majara habaabinta ah waxa weeye ee dul sare la meerayo waa khalad ummadda la rabo in lagu lugooyo ina warsame iyo intuu ka tirsan yahay ku dawladda waa isku mid xilli aan dheerayn buu lahaa laba kamid ah haddii aniga la yiraahdo shareecada miyaa lagu dhaqmaa mise dastuurka ay say no soo ma garanaysaa xagee jira ninkii salaha kii uu sheeg hawarka keenayna waa fadhiyaa علي وجيز وحا أكفر مركو سيدا لها وذاك اعتصام أمير كودا نينك سليبان محمد مقعيس بشير أحمد سلاد بأكفر دورة هيا وركدا ملا سو فيديو ما يدن داوانين قرب نجاسة أو إسكال ميستي أو إذن كيدن لقوين يوي سمالي وحيد ترادا ضميرية ضمر اسكو در على لمدقو ضدك ألد قنتين الدولة دا إذن أوا اسكو در واسكو فر دير كان كهليا معك قبيله الله سعدات واسكو مبدا يسكو فكر بان كهليا عد يدوني هالنقدين يا ليدن لقوين بين يدين شيء انت عاو ان يراهدو واربي الهي بار سبحانه وتعالى انو كسوينا دوله اسلام وقمن ونسيو وحي دينك يا كسور جيدنا ودميو بابئيو عدوغا المسلمين تي دينك انو هجبو وحي دينك انغا تاغرسن الله غوليو فرينتيدو waxa weeye أحد أمقان دينكينا مجرى لا علمه ولا وايلي نبضونه دلين يرى أطالع وشاء أيضا يعني نلوغا صدعين الباب كإياه فرنتا تاغنتهين والله أعلم